They are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. La ilaha illa ar-Rahman. الرحمن الرحيم المالك القدوس. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد درسيgan wuxuu noqonayaa darsigeennii sideedaad ee ka mid ah silsiladii aynu ugu magac darnay ramadaanka iyo acmaasha mudnaanta leh. waana darsigii qaybtiisii labaad ee sadaqada iyo ramadaanka ramadaan wasadaqa. rasuulka sala allahu alayh wasalam bishan aad iyo aad buu u deeq badnaa, aad iyo aad buu nebigu sala allahu alayh wasalam wax u bixin jiray. weligiisba nebigu deeqsi buu ahaa. ya maxaa yeele bakhaylnimadu waa ceeb, waa tuulaha afyare haawiye lagey, waa bakhayl lagu hungoobaye. adigoo maalma soo haybiyey oo hawshi ku abaaday hantibayuu ku siinine hadduu kuu hawali waayo oo hadalka kaan laga heshiin kugu horaysiiyo hahma waad huraysaa rabbiyow lagu hadhiimeeyo. yacni waxa weeye qofku inuu bakhayl noqdo waa ceeb. lidaalika nebiga sala allahu alayh wasalam akhlaaqdiisu akhlaaq aad u wanaagsan bay ahayd. kaana khuluquhu alqur'aan, akhlaaqdiisu akhlaaq qur'aanka ku salaysan bay ahayd. nebigu sala allahu alayh wasalam nebi deeqsi ayuu ahaa, aad buu deeqsi u ahaa. laakiin bishan deeqda wuu ka sii badin jiray. ya ibnu cabaas xadiidka uu warinaya radi allahu canhuma qaala wuxuu leeyay kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam ajwada annaasi bilkhayr. nebigu wuxuu ahaa sala allahu alay wasalam kan ugu dadaalka badan dadka xagga khayrka. wa ajwada maa yakuunu fii shahri ramadaan, wuxuu nebigu ugu sii deeq badnaa oo u sii dadaal badnaa bisha ramadaan. ya لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان. بشهر رمضان هبين والبو كمده جبريل أياه إيمان جري واتين نقصه مرنحة درس جيئها قرآنك يا رمضانك قرآنك أيو مركا لم مراجعين جري ولم مدارسين جري موجود. سيدا درادد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني الدبيشة مركا أتلقي سنة يسان ساداشة هودا يا ama taqsiga markaad dhageysanaysaan yani aad maqashaan waxa weeye laleeyahay dabayshu waxay ku socotaa maantay maxaan ku leeyahay saacadiiba intaasoo kilomitir bay goynaysaa, saacadiiba intaasoo kilomitir bay goynaysaa. dabayshaa saa u socotee xooga badan nebigu waa uga degdeg badnaa sala allahu alay wasalam oo uga dadaal badnaa khayrka wey. xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa warinaya. ogaada nebi maxamed sala allahu alay wasalam dembigiisa hore iyo kiisa dambeba waa la dhaafay, laakiin wuxuu ahaa nebi maxamed sala allahu alay wasalam nebi يعني maxaan ku leeyahay deeq badan oo deeqsiya ayuu ahaa. sidaa daraadeed ayaa alxaafid ibnu rajab alxambali raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay yani waxa weeye waxaa la kulmi jiray nabiga sala allahu alayh wasalam fainahu kana yaltaqi huwa wa jibriil calayhi assalaam. isagay jibriil oo amiinulwaxyi ah ayaa kulmi jiray mawjeed. sidaa daraadeed wa huwa jibriil afdalu lmalaa'ikati, malaa'igta midka u fadli badan wa akramihim oo u karaamada badan ayuu ahaa. ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه، كتابك النبي محمد سقو أكينا إلهي وقصو ديبي أيو لدرس جري عليه السلام. وهو أشرف الكتب، يعني كتبتنا وحا أفضل بدن كتابك قرآن كأه موجودة. فهو أشرف الكتب محان كلها هاي محان كلها كتبتك كان أفضل بدن وأنا أكسنا أشرفت بدن وهي موجود. كتاب كاسنا وحليه وهو كتابك يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق، وحبورنا إياه oo dadka ku tirtirsiinaya oo ku dhiirigelinaya inay la yimaadaan ihsaan iyo wanaag fal iyo inay la yimaadaan makaarim al-akhlaaq, akhlaaqda wanaagsan. akhlaaqda wanaagsanna waxa kamid ah deeqda, yani qofku waa inuu deeqsi noqdaa. ya hadduu qofku bakhayl yahay yani waxa weeye bakhaylnimadu waa ceeb. soomaalidu mahmaaya af carabiga oo ay taqaanay waxa kamid aha al-bakhilu aduwullah, ma qan meel ka keeneen. yani marka bakhaylku yani waa ceeb, wax sharafa male wey soomaalida gar. laakiin qofka deeqsiga ah ayaa sharafka iyo wanaaga iska leh. sidoo kale ayaa ibn rajab wuxuu leeyahay وكان جوده يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم deeqdiisu way sii kordhi jirtay way sii badan jirtay bisha Ramadaan si aysan bilaha kale ahayn ayuu nabigu ahaan jiray sallallahu alayhi wasallam saasuu leeyahay ya sida ilaahay ba deeqiisu uu laban laabmayo u sii kordho bisha Ramadaan mawjeed sida daraadeed ilaahay baa ku abuuray buu leeyahay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ala ma yuhibbuhu min al-akhlaq al-karima wuxuu isagu jecel yahay akhlaaqda wanaagsan ah ya وكان على ذلك من قبل البعثة انت لا سو سارين كهرنا نبي ساسوها ديقسي صلى الله عليه وسلم لذلك قفكو يعني دونتيسا iyo macdantiisa ayuu diinta la soo galaya haduu bakayl aha diintu kulay waa boorinaysa laakiin kulay sidii hadee deeqsiga qofkii ahaan jiray la mid noqon mayo lidalika waxa qof walba yani sida akhlaaqdiisa iyo abuurtiisu ahayd ayuu islaamnimada la soo galaya ayuu dhaqanka la soo galaya marka يعني waxa xumaano asagu sameeyo islaamka looma tiirin karo waa wax isagu iska leeyahay ya dadka xogaa waxa ka khaldan waxay ku oranayaan war sheekh waxa waaye wadaadkii baa basaas yeelay wadaadka wuxuu yani maxaan ku leeyahay uu diinta kula jira asaga dhaqankiisi marka hadii wadaadka lagu arko bakhaylnimo waa wax naftiisa u gaaray shariicadu bakhaylnimo ma ogola hadii lagu arko gabood fal iyo inuu wax ku galdaay oo khalad uu sameeyay waa wax asaga ku gaara ee wax diinteenu amraysa maaha lidalika yani waa inuu qofku ogaadaa يعني دينتا لغوما ميزاما ودادك ودادك دينتا لغو ميزاما يعني هالبيقا wax lagu miisaamayo wax lagu cabirayo waa diinta wadaadka ma marka arinta iyada in la fahmo oo aad loo ogaado ayaa la rabaa sida daraadeed waxa la rabaa bishan Ramadaan inaynu nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaga dayano deeqda inaynu kaga dayano sidoo khayrka ugu dadaali jiray inaynu nabiga sallallahu alayhi wasallam dhaqankiisa iska raadino ayaa la doonaya ya maxaa yeelay wuxuu leeyahay ibn Rajab yani meeshan waxa ku jiru leeyahay sharafu zaman yani zamanka sharaf leh oo bisha Ramadaan ah iyo wa mudaafatu ajri al-amal fihi yani maxaa ku leeyahay amalka la sameeyo bishan waa la laabaya waa la kordhinayo waxaana kamida amalkaas la laabayo i'aanatu as-saa'imin dadka sooman in loo gargaaro wal qaa'imiina adh-dhaakiriina ala ta'atihim inay yani dadkaas taacadooda iyo quraanka inay akhristaan oo ilaahay xusaan oo soomaan in loogu gargaaro maxaa yeelay marka dadka u gargaartid ilaahay wuxuu ku siinayaa intaad u gargaartay ajarkooda ajar lamida ayagoo aan kooda waxba laga dhimin mawjeeda sida daraadeed bisha Ramadaan waxa weey waa bishii deeqda waa bishii naxariista waa bishii maghfirada waa bishii al-'itq min an-nar oo jira naarta la iska xoreynaya habeen walba dad baa naarta laga xoreynaya ya bisha Ramadaan soddonkaas habeenba ama 29 habeen intay joogtaba qaar baa naarta laga xoreynaya waxaas ugu sii mudan habeenka laylatul qadriga oo dad badan naarta laga xoreynayo sida daraadeed si aad fursada u heshid waa inaad diyaar garowdaa ya imtixaan marka galaysid maadooyinka aad imtixaan ku galaysid waa soo akhrida waa in maadooyinku ku diyaarsan yihiin lidii aad imtixaanka u baastid lidalika bisha Ramadaan insaan loogu diyaar garoobo ayaa la doonaya maxaa yeelay qofka naxariista ilaahay baa u naxariisanaya subhanahu wa ta'ala inma yarhamu Allahu min cibaadihi ar-ruhama ilaahay adoomadiisa wuxuu u naxariis baday oo u naxariista dadka naxariista ya dadku waa kala naxariis baday runtii waxa arkaysaa dad boqol sheekh iyo boqol wadaad yani dhinaca sadaqada ka khayr badan qof ba arkaysaa iska caama ah cilmi badan aan lahayn laakiin markuu arko qof baahan wuu ooyayaaba wuu u gurmanaya waxbuu taraya ya yani waxaan arki jiray runtii oday miskiin ah waan waxba haysan dadka dariska dhaqaalay caruur ma lahayn odagaas hadaa 100 kun u dhiibtid intuu tago islaan ka shisheeysa oo gaajaysan oo meel uu ku ogaabo 100 kun u geynaya yani waa transmitter waa gudbiye khayrku gudbinaya soo ma jeedin asaga wax ma haysto qofkaas marka yani awliyada ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dadkaas muslimiinta ku dhex jirta waa farabadan yihiin lidalika waxa la rabaa dadka muslimiinta illa nabad galiyo dadka muslimiinta gaalnimada kula ordaya oo oranaya qofkan sida iyada u fakirin ama sida iyada u socon ama sida iyada aan yeelin waa gaal yani waxa weeye dadkaas iyaga waxa la rabaa in ilaahay ka baqaan oo ka waantoobaan runtii dadkaas caamada muslimiinta ah dad khayr badan oo wadaad iyo abiis ba ka khayr badan baa ku jira maxaa yeelay waxa arkaysaa sida ay dadka wax u tarayaan mid baad arkaysaa yani waxa weeye haduu arko qof baahan uu iska ooyay wax alla wuxuu haysto ayuu siinaya lidalika yani dadkana muslimiinta aan qofba waxbuu jannada ku galaya qof salaadu ku fiican yahayo salaadu jannada ku galaya qof soomku ku fiican yahayo soomku jannada ku galaya qof sadaqadu ku fiican yahayo waa deeqsiyo sadaqadu jannada ku galaya qof akhlaaqda wanaagsan yani waa qof kariima hadii lagu xanaaqo hadii la caayo hadii la aflagaadeeyo kama jawaabayo
يا وابور هلكا اسكتاغن إلهي وحسيه سبحانه وتعالى أخلاق وناكسن يا قف با maanta oo dhan u iimaanay wacay markaas wuxuu oranaya ma dhameysatay way nabad galiyo yani waxa arkaysaa waa qof walba ma yeeli kara sidaas waa khasla ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala waxa way khasladaas laga yaabaa inuu jannada ku galo sidaas oo kale marka waxa weeye bishan waxa la rabaa in deeqda la badiyo mar walba in deeqsi la ahada la rabaa laakiin bishan in laga sii badiyo ayaa la rabaa maxaa yeelay nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay inna fil jannati jannada waxaa ku yaala ghurafan guryo qolal baa ku yaala jannada yura dhaahiruha min baatiniha gudaha waxaa laga arkayaa yani waxa weeye banaanka yani waxa weeye gudaheedana waxaa laga arkayaa sidoo kaleeto banaanka yani waxa weeye yura dhaahiruha min baatiniha wa baatinaha min dhaahiriha ya wa aqalla shafaaf ya aqalla shafaafa oo aad u qurux badan ayaa halka laga helaya قالوا وحير هذا صحابته لمن هي يا رسول الله رسولك إلهيو يا إسكاله ماشي يا قلية بل لغيس ذلك قلية مركا وحلي النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحوي لمن طيب الكلام قفك هذا الكوناجية هذا الكوناجية جنة القوقلة أقاذا إن هذا في عنكو هذا شد يا وهذا الكاغو أخلاق وناكسن ويشو وهذا نقول قف أخلاق حن وهذا الكيس حن يهي وقفك مركا ونقض قف أخلاق حن وهذا الكيس حن يهي يعني وحوي هذا الجنة دي بواية لذلك لمن طيب الكلام قفك هذا الكوناجية أي ماشي أسقلية أو أطعم الطعام عنتظنا بحية يا يعني قرقي سمر والبع عنتظا لقعنا قرابة جوكتا ضد مساكينة جوكا يعني وحوي عنتظا أيضا كسينية أو أدام الصيام صوم كان جوكتية أو وصلى بالليل والناس نيام habeenkiina tukada iyagoo dadku markay hurdaan salaatuleelka u soo kaca dadkaasa galayu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam liman tayyaba al-kalama wa at'ama at-ta'ama wa adama as-siyama wa salla bil-layli wan-nasu niyam yani waa saas hadalku wanaajinaya waa qof hadal wanaagsan hadalkiisu waa hadal kariim ah ya yani waxa weeye runtii dadkan carabta ah waa dhaqamada islaamka uga haray ayay kamid tahay ninka carabka ah markuu xanaaqo ama gabadha carabeed waxay ku leedahay aslahaka allah هداك الله الله يهديك بوكو أرنية قفكو يعني كما عايو وكودو عينيا إلهي كو هجاجيو إلهي كو هنونيو يعني وعردي قدام بيسي أي كمريسا لذلك هذا الكأول وناجيو ونغن إسلام وانا نغن جنة الغوغلو وأطعم الطعام قفكو عنتدى بحية وانا تقولي انتي مساكين ادو حكسين كرتا اتكسيسيد وأدام الصيام صوم كان دوكتية وصلى بالليل والناس نيام هبين كينتو كذا markay dadku hordaan xadiiska imaam ahmed iyo tirmidhi iyo xaakim baa soo saaray sida daraadeed yaanihi dhaqankan la sheegay ee kala duwan yaani kulli waxa lagu tagaa jannada ilaahay subhanahu wa ta'ala qofkii waxa u kulmaya yaani akhlaaqda iyo hadalkii wanaagsanaa soomkii qiyaamkii sadaqadii kulli waa u kulmayaan sida daraadeed waxa weeye waxaad arkaysaa soonka laftigiisa waxa qofka loo diidayaa yaani oo laga reebayaa aan lagwi warafath يعني هذا الكما لا يعني أي البديء من الكلام هذا الكليته يعني والودي قفك مركا waxa soo dhan ayuu qofkii isu keensanaya marka in soon iyo sadaqa loo kulmiyo waxay keentaa in qofka dunuubta loo dhaafo inuu jahannama ka dhowrsado ya haduu qiyaamul leyl ku sii darana kaba sii daran marka yani waxa weeye bishan waa bishii deeqda waxa la rabaa inay dadku deeq la yimaadaan mideeda kala soonkaaga waxa la arkaa oo caadiyaba ahba inuu khalal ku dhaco oo wax ka soo gaargaaraan oo soomkaagi maxaan ku leeyahay uu dhaawacmo sida daraadeed sadaqada qofka uu la baxayo soomkiisa way kabaysaa maxaa yeelay حتى زكاة الفطر محلو جدي وطهرة للصائم من اللغو والرفث يعني زكاة الفطر قال بحنا مركب بشر رمضان ماتو قفكي صومنا وحي هذا ما لا يعني هذا اللي تي وما لا يعني هذا اللي تي وكدعي وحا كبيا يا او كبيا يعني وحوي زكاة الفطر زكاة الفطر اي قفكي كبيا او صونكاغي مركز زكاة الفطر قبا وحا لو جديي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين هي مساكين تن لغو قوديو او مساكين تجاجدا لغا بي مالنتاس او لغا فرخيو او مسلمين تو اي فرحان اي لو جديي صومك حكمتيسا waxa kamida oo qofku ajarka uu ka helayo yani yad'u ta'amahu wa sharabahu lillah
cuntadiisa iyo cabitaankiisa ilaahay dartiisa uga tegay marka hadduu dadka saa'imiinta ugu kaalmeeyo cala taqwa cabsida ilaahay hadduu ugu kaalmeeyo oo calaa tacaamihim wa sharaabihim ya hadduu cuntadoodii iyo cabidoodii u diyaariyo yani waxa weeye wuxuu noqonayaa يعني قف إلهي سبحانه وتعالى خير زيادة كدونتي أو كرات سدي أيون نقونيا محايل قف صومن أو الأفريو وحسهلا معها يعني وحوي أجر فربضن أيا لجهلا أو قفكو وكتر سنيا لذلك وحال ربا قفكو إنه كد داله إنه بشهر رمضان وحسد قيسته ودتك مسلمين تأه وهدو طبعا قف جورجي سكو أفريو يا هدو شن قفكو أفريو هدو سدح قفكو أفريو وحن بأركي دونا وحكلته أو كبسي فضود baa inoo imaan doona sidaa daraadeed sadaqada mar walba waa manduub waa shay wanaagsan in la sameeyo laakiin sadaqada ramadaanku waa ka sii wanaagsan tahay waa ka lidaalika ayaa imaamu shaafici raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay uxibu lirajuli aziyaada biljuudi fi shahri ramadaan waxaan la jeclahay qofka inuu kororsado deeq bisha ramadaan اقتداء بالرسول الله صلى الله عليه وسلم isagoo nabiga ku dayanaya walixaajati الnaasi fiihi ilaa masaalixihim iyo baahida dadka muslimiinta ay qofkaas waxaysta u baahan yihiin inuu masaalixdooda u qabto ya iyo walitashaaquli kathiirin minhum bisawmi wasalaa can makaasibihim dad baa soonka iyo salaada uga mashquulaya makaasibtooda nin baa dhagaxa jabiya nin baa birta tuma nin baa yani shaqooyin adag baa dad muslimiinihi qabtaan oo ramadaanka runtii aad dhib u ah dadkaasoo kaleeto yani waxaa la rabaa iyaga laftigooda in la deeqo si ay shaqada u yaraystaan oo ay soomka ugu bambaxaan oo qur-aanka waqti ugu helaan oo taraawiixda waqti ugu helaan marka bisha ramadaan waa maalin waa bil habeenka iyo maalinta labadaba camal lagu jiro ya waa habeen ay waa xilli ay sameyn yihiin dadka aqniyada iyo dadka fuqarada ah mawjeeda marka yani qof walba cuntadii wuu ka sooman yahay laakiin habeenkii marka la afurayo qofka miskiinka ah waxa laga yaabaa wuxuu ku afuro inuu waayo marka waxa la rabaa qofka qaniga ah dadkii uu wax taro ayaa la doonaya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yani wuxuu ahaa nin sooman oo afuran ayuu ahaa yani nin sooman oo aan afurin illa maca almasaakiin yani wuxuu ahaa yasuumu wala yuftiru illa maca almasaakiin markuu sooman yahay hadduu afurayo masaakiinta unba la afuri jiray ya qof baa arkaysa gurigiisa wuxuu afur ugu sameeynaya dad tujaartii wadanka buu afur u sameeynaya hotel dhan intuu kireeyo yani waxaa la rabaa tujaarta waxay cunaan waa haystaane hotelka kiree bedelkooda masaakiintii keen mawjeed haddii uu u yimaado qof wax weydiisanaya yani cuntadiisuu siin jiray ya waa siin jiray marmarka qaybtood waxaa ku dhex jirtay inuu wuxuu ku afraba isagu waayo siduu dadka muslimiinta u siinayo sidaa daraadeed dadka saalixiinta ah ama salafkii waxay ahaayeen dad sidaas u dhaqma oo afurka markay la gaaro yani dadka masaakiinta ah la afura oo dadka masaakiinta ah wax tara ayay ahaayeen imaamu axmed raximahullahu tacaala ayaa waxaa u yimid nin maskiina oo wax weydiisanaya markaasuu wuxuu siiyey 2 xabo oo kibis ah ama muufo ah ayuu siiyey oo u diyaarsaday inuu asagu ku afuro markaasuu waxa weeye iska seexda isagu markaasuu wa asbaxa saa'iman asagu waxba ma cunin wuxuu siiyey qofkii maskiinka ah الحسن البصري رحمه الله تعالى وحوها يسقنا ذاتك ولاليهيسا أو مسلمين تا أو قاجيسن أيو قودين جري يا أسقو صومن صوم تطوع مثلا اثنين تا خميس توكله أيو صوم سنة صومية أسقو صومن أيو ذاتك عنتو كرينا يا أو عنتو السينا يا مركاسو لح فريسنا يا السقا أو قيبنا يا عبد الله بن المبارك أو تاجر أها يعني أدو هانت بدن بوها رحمه الله تعالى يسقنا يعني وحوي ذاتك وقودين جري يا حتى يعني حلقة مركو سفر كيهي دادك لا سفرة يعني وحو قادم جري وحيابا حلويات ومعمعان إيو يعني ما رتا أيو سين جري دادك أساقنا حتى وحلقة يابا حلقة إنو سومية صوت سنة أيو هانجري سيدا درادين يعني قفك بش رمضان وحال ربا إنو كدكتو بل وكجدبو يعني محان كلها هي عقبدا وكجدبو محان كلها عذابك وجدبو جنة إلهي سبحانه وتعالى سيدا درادين صدقة لبحيو يعني بش رمضان مضنان قاره أي لهذا مضنان قاره أي لهذا هي يعني وحوي في بعض الأحاديث وحكسوا أروري أفضل صدقة رمضان حديث الترمذي أوريي انكستو حديث رنتي أنا قرنين ولو بهاي إلا فيريو لكن هدنا يعني الصدقة بش رمضان إلا بحيو يعني وحين كسوا أرقني ميلا فربضان مركا يدغن كسلفكو سيدي هانجرين
زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق رسولك حل أمري إن صدقي سنه أي نبي قلنا أمري صلى الله عليه وسلم يا مركا وحوي وحان مالنتا أن صدي بيري فقلت اليوم أسبق أبا بكر ما أنت أبو بكر وأنا كدير يا بير أسجي أبو بكر بخير كتر تمية يعني محايل ولي جيبة كما ديرين بير ولي خيرك كما بدن أبو بكر ما أنت وأنا خيرك كبديا marka nabigu sallallahu alayhi wasallam dagaal adag ayuu diyaarinaya marka dadka waxa uu nabigu weydiiyay inay sadaqa la baxaan inay sadaqo la baxaan waa markii jeyshul usra la diyaarinay marka waxa yimid dagaalkii markuu nabigu diyaarinay sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar Umar wuxuu yiri waa inaan Abu Bakar maanta ka dheereeya qaala markaas wuxuu yiri faji'tu binisfi mali maalkiisu xisaabiyay 50% boqolkiiba konton ayuu keenay فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز رسولك وحو يري ما أبقيت لأهلك محاد عمر وخيرك أقربتي قال وحو يري فقلت مثله انت أنا كان إن لم يدان أقربي وأتى أبو بكر بايمد بكل ما عنده الله وحمالها السليمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مركز وحو يري ما أبقيت لهم محاد أقربت أدور عيالك حاسسك قال وحو يري أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله لا مالك سيؤدن ببحي مركز عمر وحان إريبو يري لا أسابقك إلى شيء أبدا ولي مرد بكل ما ترتميه محايا لي نين لقب دين كربا متيد محايا أبو بكر وخيرك أهي ليه خيرك أيو أبو بكر أهي ليه هي موجود مركا يعني قفك حال الربا إنه كد داله إنه خيرك ولبحه أو خيرك لي ماذا أو نفتيس أو بره مركا يعني قفك حال الربا إن ودتك مساكين تأقوديه يطعم الطعام إنه لي ماذا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قرآنك واتقصى أرورتي موجودة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا maxay dadku ula baxayaan waxaas waxa ilaahay baan ajir ka rabnaa idinka waxba shukri iyo yaani abaal marin ka barramno inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira maalintaasaan ilaahay ka baqayna oo qiyaamaha ah maxay helayaan fawaqahum allah sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura maalinta waa la ilaalinaya farxad bay la kulmayaan iftiin bay la kulmayaan wajazaahum bima sabaru jannatan wa harira waxaas ay yaani abaal marinta waxay helayaan janno iyo xariir bay helayaan موجودة النبي صلى الله عليه وسلم وكيلها يا أيها الناس أفشوا السلام سلام تفافية السلام عليكم اسكو سلامة وأطعموا الطعام عنتظر ضدك قوضية يان مساكين تقدن وصلوا الأرحام قرابة حريرية وصلوا بالليل والناس النيام هبينك تكذا مركي ضدك هردان تدخل الجنة بسلام جنة ذات نبت قليك قليسان حديث الإمام أحمد الترمذي باوريي شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أنا وصحيحيي سيدا درادد يعني وحال ربا بشان إن آد لو دداله أيها الربا ولا لي ماذا يعني وحوي أجر كاس من فطر فيه صائما يا كان مغفرة لذنوبه يعني وان دنبي قال الله رافيا نار تالغ حرينيا أجر كي قفك لسي مثل مذا أيو قفكي هليا إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سنينا إنه إن كدغو كوا كفا إيديستا بشهر رمضان oo dadka masaakiinta ah oo muslimiinta ah u gurmada sadaqadana la baxa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. They are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. La ilaha illa ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus.